12 Oktoobar meeshaana laguma kala maqna dagaal dheer ee dadka Soomaaliyeed oo dhan oo madaxdooda ay hogaaminayso ay soo galeen ayaa guul ku soo dhamaaday waxaan leenahay Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha waarto waxaan rabnaa meeshan waxa caawa loogu talagalay xafladan oo sameeyay midowga murashaxiinta oo ugu talagalay in halkan lagu wada dabaaldego waxaan nagala soo qayb galo xafladda soo sharfay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi oo aad ogtihiin halganka doorashada dalka qaybta weyn ee libaaxa uu ka qaatay iyo gudoomiyihii hore ee gudoomiyahaygii saaxiibkan Professor Maxamed Cusmaan Jawaari caawa waa habeen weyn qof walba oo naga mid ah oo Soomaaliya jooga ama dalka dibadiisa ku maqan ama Soomaalida xuduudaha ka maqan intaba waxay ku faraxsan yihiin badda Soomaaliya u soo laabatay fadhiga waxaa nala jooga midowga murashaxiinta oo gudoomiyuhu ii sheegay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed gudoomiye ku xigeenka aqalka sare mudane Abshir Abshir Bukhari waxaan rabnaa marka inaan intaas ku soo dhaweyno xafladan oo ugu talagalay midowga murashaxiinta waxaa loogu talagalay in xafladda loo dhamaado marka koowaad dardaaranku wuxuu ahaa ay madaxdu noo sheegeen markii xafladda la qabanqaabinayay Soomaaliya wada guuleysatay oo qofna ma guuleysanin muxaafid iyo mucaarad dhamaanteen waa la wada guuleystay qodobka labaad galabta markii go'aanka la gaaray xogaa waxaad moodaa dad badan inay amba tageen go'aanku horta wuxuu ahaa go'aan qaanuun go'aan sharciyadeed hal saacna waaba la akhrinayay intiina dhageysanaysay howl fudud oo qofka uu si fudud u fahmi karo qofka caadiga ah loogu talagalay ma ahayn laakiin meesha waxa ka soo baxay waxa ugu muhiimsanaa kow in ay Kenya qaabkii ay sheegatay oo ay rabtay xuduudda in loo xadeeyo laga diiday macnaheedana waxay ahayd sidii Soomaaliya ay rabtay ayaa la ogolaaday labo Kenya waxa ay ku dooday inay ammaankeeda darteed xuduudda sida ay iyadu ugu talagashay u rabto ayadana waa laga diiday saddex Kenya waxay ku dooday kalluumaysatadeedu meel ay soo maraan inaysan helaynin arrintaasina arrin sharci ah inaysan ahayn loo sheegay waa laga diiday sidoo kale Kenya waxay ku dooday xuduud hore u jirtay oo xuduud badeeda inay jirtay ayadana waa laga diiday markii dambana maxkamaddu waxay xukuntay sida ay Soomaaliya u rabtay arrinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed hambalyaan leenahay madaxda muxaafidka iyo mucaaradkaba hambalyaan leenahay midowga murashaxiinta wuxuu idin leeyahay soo dhawaada habeenkan xafladda iyo dabaaldega 12 Oktoobar oo noqday habeenkii calanka Soomaaliyeed ee noqday habeenkii badda Soomaaliyeed cid walba ee lagu dulmiyay oo dhibaato loogu geystana raalli ha ahaato wixii hadda ka hor dhacay ka mayro caawa badda Soomaaliyeed waa la wada difaacay kow ilaa dhamaad waa la wada difaacday aad iyo aad baa u mahadsantihiin guulaysta